مسؤولين كميدا بنتلان ayaa ka hadlay dib u qabsashadii dagaalkii magaalo xebeedka Qandala ee gobolka Bari ku dhexmaray kooxda Islaamiyiinta ee sheegatay ururka Daacish kooxdan oo muddo ku dhow 50 cisho gacanta ku hayay degmada kuwaasi oo isaga bixeen shacabkii ku noolaa degmadaasi mas'uuliyiinta ayaa sheegtay in muddo 13 bariya dagaal ka socday ay u suuro gashay inay dib gacanta Puntland u soo gasho Qandalo xubnaha Puntland oo isugu jira heer wasiir maamulka gobolka Bari kan degmada Qandala iyo gudoomiyihii hore gobolka Bari ayaa ka hadlay qabsashada Qandala maxaa degmada Qandala oo aanu ka safayno maxaa argagixisada haysay sida maxaa warsaxaafadeed hore baad ku maqasheen 30 nin waa ka dhinteen 35 waa dhaawac aanu hayno iyo maxaabiis ma jirto sababtu waxay tahay dhaawacba ma yeeshaan iyaga isgowraca markii maxaa dhaawac gaaraan waanu ka qabanay 3 gaadiida waanu bari saxaafada aanu soo bandhigi doono oo aanu saxaafada horkeeni doono iyo qalab aad u fara badan oo aan qof bini aadan maankiis aan galayn waxaanu haynaa xogo dad badan oo la shaqeyn jiray oo maxaa aad u fara badan xogtood oo maxaa ganacsi leh oo maxaa siyaasiyiin leh oo cid kasta leh xogihii iyo xiriirkoodii dhamaantoodna waa haynaa iyada waxaanu jecel lahay in ciidanka hortiisa aanu maxaa ku soo bandhigno madaalayaasha ahaa ciidamadii halgamaaga ahaa oo ka koobnaa qaybaha kala duwan ee ciidamada Puntland oo ay horseedka u ahayd guutada horseed aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan mas'uuliyiintii ka qayb qaadatay xoreynta deegaanada tan ay ka mid ahayd magaalada Qandala kalkaas oo bilowday 26 bishii ina soo dhaaftay maanta ayaanu ku soo galnay intaasna waxaan ku jiray hawlgal baan ku jiray iyo shaqo ilaahayna wuu nagu guuleeyay maanta waxaan joognaa xeebtii Qandalaan joognaa oo runtii lagu dabargoynayo ama lagu tirtirayo ururka Daacish la baxay kuwaas oo runtii ku ah caqabad ku ah Puntland Soomaaliya iyo adduunkaba inaan qayb ka ahaa aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay muxuu ahaa cadawgaas insha Allah Abdullaahi waa jabaya laakiin waxaan ugu baaqaynaa meel walba ay joogaan muslimiin iyo Soomaali dhamaantoodba inay ka digtoonaadaan muxuu ahaa inxiraafka cid walba muxuu runtii u keenaysa diintooda iyo dadkooda dhibka inay u istaagaan soo garab istaagaan magaalada Qandala oo 80 kilomitir dhanka waqooyi bari ka xigta magaalada Boosaaso ayaa hadda ah mid ka banaan shacabkii kuwaasi oo tan iyo markii ay kooxda sheegatay Daacish ay gacanta ku dhigeen uga barakacay deegaanada ku dhow sida ay ku soo waramayaan wariyaal shalay dhex tagay Qandala Faadma Taxadar waa Bari TV Boosaaso